السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا أنت مالك صدق داور إنسان هلكن وهم ذو أنا وحنا عبد الرحمن وحرجينا عارف ما قبته هدي أنا لا شوكتي وأنا ما تصنت هدي أنا نقول صوت هينا channel كسبسكرايب نصار برت فيسبوك هذا داور السنة فلو من الصورة الرمى دورة أيام ماشان كوجو هيا وكسبسن Soomaaliya iyo Mareykanka hadaladan kooban ee aan bartanku wala wadaagayo waxa kamid ah in madaxweynaha Mareykanku uu awaamiir fara badan oo bixin doono intooda badan aan u baahan doonin awood asaga ka sarreysa oo ansixisa balse asagu uu awood u leeyahay inuu saxiixo ay nasaaro ku meel maraan qodobo dhowra ayaa ugu waaweyn oo Soomaalidu saameyn ay ku yeelan doonto waxaana kamid ah kow in qaxootiga sharci darrada ku jooga dalka Mareykanka dib loo soo celin doono taas oo Soomaali fara badan saameyn ku yeelan doonta kuwa jooga Mareykanka iyo kuwa gudihi joogaba oo dadkaas laga yaabo hadda inay ku tiirsan yihiin waxaa kamid ah dhisidda derbiyada xuduudaha iyo xoojinta ciidanka ilaalada ee Mareykanka taas oo iyadana meesha ka saaraysa tahriibayaal fara badan oo Soomaaliya ku jiraan oo iyadana saameyn doonta waxaa kamid ah wadamadii aan la ogolaan jirin xilligiisii la mamnuucay in looga safro dalka Mareykanka oo Soomaaliya ay ku jirto oo iyadana dib loo soo celin doono qodobada iyo qodobo kale oo dooran ayaa kamid ah balse Donald Trump oo inta badan dadku ay ka aaminsan yihiin inuu waalan inuu yahay laakiin in hadal cad ah inta badanna waxa ay aaminsan yihiin asaga iyo inta taabacsan sheega ayaa arrin lama filan ah oo in badanna uu ku ololeyn jiray horeyna uu soo aaminsanayn ayaa kamid ah sharciyada uu Mareykanka ku soo rogi doono waana arrin saameynteeda lahayd oo Soomaali fara badan ku kaliftay inay Mareykanka ka qaxaan oo ka cararaan meelo badan oo Yurub kamidana lagaga daydayna saameynteeda lahayd waana arrinta sinjiyada weey Donald Trump markuu soo istaagay muxuu yiri laga bilaabo maanta dalka Mareykanka oo kaliya waxa ka jiri doona laba sinjiyadood inaad nin tahay iyo inaad dumar tahay wax u dhaxeeya ma jiri doono qoladii marka dhibaato ayaa ku dhacday laga roonayaasha ahaa iyo intii la midka ahayd ee labada sinji ahaba dhibaato ayaa ku dhacday bal Donald Trump and dhageysano This week I will also end the government policy of trying to socially engineer race and gender into every aspect of public and private life. We will forge a society that is colorblind and merit-based. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. laga bilaabo maanta waxaa si waadaxa uga hirgalaya ama uga dhaqangelaya dalka Mareykanka in ay jiraan laba sinjiyadood oo wax kale oo saddex ayaa aysan jirin intaas waa madaxweynaha Mareykanka oo run ahaantii arrintaas aad iyo aad dad fara badan ay u soo dhaweeyeen dadka diimaha aaminsan dadka muslimiintuna ay si weyn caqabad iyo dhibaato dul saaran ay ugu ahayd wallow dadka diimaha aaminsan oo dhan arrintan ayna jeclayn ama ayna doonaynin haddana de muslimiinta waxay ku leedahay saameyn gaar ah oo waa arrin innaga diinteena dhaawac weyn inagu keenaysa iyo dhaqankeennaba haddayna muslimiin nahay guud ahaan meeshaan doonaba aan ka soo jeedno arrintaas ayuu Donald Trump ayuu ku dhawaaqay dhinaca kale waxay saxaafaddu aad u qorayaan in madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud lagu dhagan yahay oo dalka Mareykanku ay xanibeen lacag gaadhaysa 260 milyan oo ku qorayn magaciisa iyo magaca familkiisa carruurtiisa iyo qoyskiisa ku qoray lacagtaas ayuu Mareykanku hor istaagay saxaafadda ayaa arrinta qoraysa wixii ka soo kordha dib baynu ka ogaan doonaa bal waxa isbarbardhig ku samaysaa
xilli uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ka ahaan jiray dalka Soomaaliya madaxweyne ka ahaa taramkiisii hore oo ra'iisul wasaare ka ahaa maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweyne hadda isaga ka horreeyey oo uu ka hadlayo farmaajo uu sharaxayo inuu aad ula yaabay diyaarad uu kaga safrahayay magaalada muqdisho oo u socotay nairobi oo lagu yiraahday waa inaad maadaama ra'iisul wasaare tahay diyaarad private inaad qaadato $30,000 aad bixiso uu diiday wuxuuna raacay diyaarad $200 oo wajah maraysay oo halkaa ka galaysay nairobi halkaas oo kula kulmay sida ay Kenyaanku Soomaalida u bahdilaan arrintaas oo Soomaalidii safri jirtayna u noqotay fursad markuu ra'iisul wasaaraha socda ka soo dhaxbaxay markii uu tagay nairobi waxay la dejiyay hotel $1,500 wuuna ka guuray oo mid normal ayuu tagay khudbadaas oo jeedinayo maxamed cabdullaahi farmaajo ayaad ka arkaysaa social media aad ugu jirta waxay marka isbarbardhig ku sameynayaan labadii madaxweyne hadalkaas iyo hadalka iyo hadaladii aad la soo garabooday maalintii dhawata balse arrintan $260 milyan ee dollar ah ee qoyska madaxweynaha ku qoran ee Mareykanka hor istaagay xogtaas waxa ka soo kordha iyo siday wax uga jiraan dib ayaynu kala socon doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo insha Allah taala balse saxaafadda ayaa aad arrintaas u soo qoraysa inta aynu barnaamijyada ku xigayno arrinta ay arrimo lamida ku falanqeyn doono barnaamijkan halka ayaynu ku joojinaynaa waa anigu Cabdiraxmaan oo idin leh hada wabillahi tawfiiq wa salaamu calaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh